بسم الله الرحمن الرحيم أنا قاعد محمد هذا الجردة كانت رسم قولا هذا حسبي ووطني waxaan maanta shirkiga jiray doonayaan inaan uga faa'iideysto sideen u doogsoonnahay dhamaan waxa mudooyinkan u dambeeyay meediyaha ku badnaa siyaasiyiin xisbiga hore uga tirsanaa oo runtii kala soo jeeday gobolka saaxil oo si adigu kala duwan uga tagay xisbiga iskana casilay xubnihii ay ka ahaayeen ayaa bulshada mudooyinka dibba uga dareen celinayeen siyaabo kala duwan qaar yiraahda tala qabiil iyo wax noocaas ah ama la halmaalo oo runtii aan ku fiicnayn anshaxa ama suluuga siyaasadda tala reeraysan bay uga tageen qaar yiraahda qaar sida saxda ah u turjuba runtii dareen kala duwan oo si taban iyo si togan bale ayaa bulshadu ka celisay haddaba waxaan shirkiga jiraadaan ku sheegaynaa inaanay jirin wax haba yaraatee xubnahani markay imanayeen tala ay ku wada socdeen kuma iman marka ay ka tagayeen tala ay maaragta ku wada socdeen kuma tagin nin waliba baahiisa gaar iyo dareenadiisa gaar iyo maaragta aragtidiisa gaarka ayuu buu cabiray oo kaga tagay marka taa bulshada waxaan leeyahay inaguma cusba bulshada reer Soomaaliland inaguma cusba siyaasi intuu xisbi ka diga rabto mid kale u diga rabto haraweynu oo wax weeyo in badan xaajo uguba ma wax badan baynu aragnay siyaasiyiin macnaheedu ahsaabta isaga gudubto oo isaga diga rabto kuwan hadda kulli saaxada media ku cusubina de kuwaas bay kamid yihiin sideedaba asxaabta qaranka waxaynu u samaysanay in qof waliba xisbiga uu ka dhex arko aragtidiisa shakhsiga ah inuu ku beero ama taageero waa qodobka aan ku waaninayo bulshada ama aan xasuusinayo in maaragta asxaabta aynu samaysanay in qof waliba xisbiga uu fikirkiisa ka dhex arko ku beero waa wax maaragta dastuuriya waa qofku xaq u leeyahay ceebna ma laakiin waxa ceeb ah inaynu wixii qaab kale oo ama qabiiladaysan ama aynu uga hadalna bulshada uga digaya ruuxantii wax fiican ma aha xasaabta waxaynu samaysanay inaynu kaga baxno qabiilada iyo si xuquuqsheega taa intaas ka gudbaya in lagu ma cusbo waa la yeeday siyaasiyada guurguur ee hadba xisbi ku beera kuwana ku bay kamid yihiin hadaa dubur raacdaan xubnaha dhamaantood ka tagay xisbiga wadani marka hore xisbiga kale inaga yimaadeen Faadimo Saciid Ucid bay ka timi Nuuruddin wuxuu ka yimi Ucid Ali Ahmed Kushi kulmiyu ka yimi maanta uu ku noqday barina inagu soo noqdaana wax dhici kara sayagana qodobkan leeyahay wuxuu yahay qodobkan halkan uga diraya saaxiibada horta aad baan ugu mahadnaqay waa ragal saaxiibo u nahay runtii aan uga mahad celinayo juhdigii iyo dadaalkii fara badnaa ee ay soo galiyeen xisbiga balse waxaan ku waaninayaa war kullay laga yaabaa berrin meel hadda ka tagayso meeshaad fikirkaaga iyo maaragta dadnimadaada iyo rayigaaga saliimka la dhex joogtay inaad si ay daawada wax ka sheegtaa oo aad maaragta ka direy waxaan wanaagsaneen baan qabaa ama aad si shakhsi ah u weerarto ama si xisbi ah u weerarto waa laga fiicay runtii waa suuragal axsaabaan ku nahay berri ka maalin inaad ku beertaan wixii rikoorka siyaasaduna waa wax yaala siyaasaduna sideedaba sabir bay u baahan tahay qawaacid ay u baahan tahay sabirka ka mid ah inaad cagaarka ku hayso bahashu dhinac mar waxa la yiraahdaa dagaalkay ka matashaayo waa dagaal aan hub la isku qaadanayo sida hadii jeer ay sheegaan qoliyaha jabhadihii ama ciidamada ee dagaalada yaqaana deenina marka ciidankiisu dubogorasho xeel dagaal sameeya buu daqiiqado cagaarka ku sii hayaayo wuxuu baleeyahay hebel inagoo dubu soo baxay uu sii radeeyay baa la yiraahdaa nin waxa la yiraahdaa horteen buu hebel oo isagoo ciidanku dubu bixin laga horeeyo qorigiina uu tuuray baa la yiraahdaa laba naan ay isagoo hirgalo oo uu kaga tago
يا فقراياش هو بينقضا تروح عند الله بالكوا قرية تورها نقولنا meesha biri ku soo noqon doontaan hadda kulay wadi ka guurguurayay ina cambaarey kaga tagtaan waa laga yar wanaagsan yahay at least wada xoorina ma lahayd hadda wax tuurteen la faaqur baa la xaragada ha ka tagine ya intaana waxa ku wanaagsan saaxiibaday assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala muhammad wa ala alihi sahbihi ajma'in aniga magacaygu yahay maxamed aadan kana tirsan xubin golaha dhexe xisbiga wadani gobolka saaxil halkan maanta shirkan jaraa'id inuu ku qabanayno wuxuu daarayeen inta uu sheegay oday maxamed iga horeeyay runtii wuxuu daaran yahay inaynu maaragtay bayaamin ku sameeyno xubna hore uga tagay xisbigan wadani oo maaragtay ka tirsanaan jiray golihiisa dhexe iyo xogayaalba ka ahaa runtii xubnaha tagay runtii cambaaraan meena waa u mahadnaqaynaa shaqo wanaagsan bay xisbiga u hayeen laakiin mid baan doonaynaa inaan saxno markaan saxayna waxa weeye markay xisbiga tagay qaarkood waxay yiraahdeen xisbigani shaqadii ama halkii loogu talagalay uu ka baadhay waxaan leenahay walaalayaal kama baadhina xisbigani shaqadiisii uu wataa sidii saxda ahayd baan wax waliba noo socdaan hadii goor marathon kan la ciyaaro qolada ciyaaraha aad u fahmaysay waxa laga yaabaa in 100 qof ay marka hore orodka bilaabaan dhowr qof oo kooban ayuunba ka soo hadha marka haddii marathonku dheeraaday runtii oo de sii wadi kari weydeen wax mushkilada ma laho de qofku uu ka leexan karaa sabab kale jiri karto maaragtay shakhsiga qofku maaragtay hawlihiisii xisbinimo uu isaga badayn karaa laakiin in maaragtay de cambaarayn meeshii lagaga tago sida maxamed aadan iga horeeyay uu sheegay oo la yiraahdo de xisbigii waxa uu qaban iyo macnaheedu ujeedadu uu ka baadhay oo de la xajiimeeyo runtii waa laga wacan yahay shaqo wanaagsan waan idin qarinaa shaqo wanaagsan baa qabateen waan idin kuma hadnaqaynaa de waxa wanaagsan ay qabateen waxuna ka daba geynina ayaanu leenahay runtii warka ah in maaragtay xisbigu ka baadhay ujeedadiisii war saxama waayo anagu xoogaal baan nahay niman odayaal nahay xisbiga hoos baan ognay saxaafadda kuma badin laakiin xisbiga hoos baan ognay wax walba ka jira talaabaan la soconaa wax mushkiladii kama dhex jiraan xisbiga shaqadiisa caadigeed buu ku jiraa had iyo goor xilalkana de waa la isbedelaa hadba cidii loo gartay maaragtay ayuunba de ilaahay u qadaro madaxda markaa meesha joogtaana de ay u garato de ayuunba la isu bedelaa adduunyadoo dhan baaba de isbedel iyo maaragtay iskhaliifid ku socota taasaan ka leeyahay qodobkayga ku xiga waxa weeyaan de waddankan aynu maanta joogno hawshiisu halkaa marayso waa la socotaan inaan maaragtay xoogaa xaaladiisu de siyaasiyan ay cakiran tahay wuxuunba muhiimadu tahay inaynu maaragtay xisbi ahaan kaga gudbaynaa dee wadajir iyo maaragtay iyo wax isu sheeg iyo talo inaynu kaga gudbaynaa taladuna waxay ku fiican tahay markaad gudaha joogto inaad si wanaagsan raygaaga u dhiibato laakiin mar haddaad meeshiiba bannayso inaad de ma garanaysaa dee wax kasii daba tirtiraahdaa waa laga wacan yahay dadka maanta de halka taladu maanta waddanku maraysa inaan kana weyn iska wada ognahayo de iyada cidina cid looga warrami maayo marka wuxuun baan leeyahay walaalahayga ugu nasteexaynaya hawsha xisbiga ay ka tageen waxa weeyaan de dantiisu qof waliba warka inuu ka tago laakiin inaan si wanaagsan qofku maaragtay uga tago in baa muhiim ah inaan maaragtay xajiimeyn meesha imanin qodobkaas uu doonayay inaan bayaamiyo wuxuun baan ku soo goynaa qodob guud oo ah tala guud waddankan iyo xasilooni baynu uga baahanay siyaasadeed dawladda waxaan kula talinaynaa iyo dadka xukunka haya de waxaan oo dhamay waa dadka idinku u talinayseen waddankuna haddaanu helin political stability waxa la yiraahdaa ama xasilooni siyaasadeed iman dhaqaalahan hagaagayn amnigan hagaagayn waxyaabo badan baa carqalad ku imanaysa annagu dadka suuqa joogay maaragtay de hoos u og baan xaaladda dhaqaale waddanku marayo furfurnaansho dhaqaale in dawladdu la timaado in xaaladda waddanka maaragtay salka loo dhigo in la isdhageysto way aragnimadaynu ka dhaxalay odayaasheenii inaga horreeyay oo tanaasul iyo wax isdhageysi baa ilaa imkana qaar ka mid joogaan inaynu isdhageysano oo xasilooni islaamid la sameeyo oo dhaqaalaha waddanka la furfuro oo maaragtay la isu dabciyo oo la isla eego hadba wixii qaldan ayuun bay muhiimadu tahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu